garoonka diyaaradaha ay ka wadaan howlgallo xoogan inta u dhaxaysa degmada Mahaday iyo garoonka diyaaradaha ee degmada Tanjawhar. Ashada haddaan u soo noqdo xalata 3 saac iyo bar markay tahay ayaa nimankii oo nabadiidka ahaa ayaa waxay damceen inay weerar ku soo qaadaan airportka gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar. ciidamada ayagoo fooljigan oo ku jireen heegan 100% ayaa si naxariis la'aan ayay uga hortageen waxaana lagu dhiftay gacan bir ayaa lagu dhiftay. waxaan ku ammaanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee xaleeto howlahaasi ka qayb qaatay sida geesinimada ay u muujiyeen sida howlka khasaaraha oo ka dhacay xaleeto annaga xaggayna ma jirin laakiin ayaga xaggooda khasaaro badan baa ka dhacday dhimasho ka dhacday dhaawac ka dhacay waxaa laga helay hub iyo risaas ay ka carareen dhiigooda oo meelaha wada daadsan farxadaas iyo niyad wanaagaasna waxaa keenay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana ku amaanan yihiin 100%. sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee dawladda Soomaaliya Injineer Cabdi Jiino Calasow ayaa hore ugu hanjabay inay la wareegi doonaan degmooyinka Warshiiq iyo Mahaday iyo deegaanada ku xeeran waxaana iminka laga dareemayaa ciidamada dawladda Soomaaliya dhaqdhaqaaq xoogan oo ku wajahan sidii ay deegaanadaasi ula wareegi lahaayeen. gobolka caasimadiisu waa degmada Jowhar 4 bilood 5 bilood ay xorta wixii hadda ka horeeyay waxa la daaladhicina amni oo aad ogtihiin inta marxaladooda soo marnay madaxweynuhu wuxuu si gaar amar uga baxshay in Warshiiq fiidow iyo meesha la yiraahdo Mahaday muddo gaaban lagu xoreeyo marka dhacdooyinkaas maxaa la yiraahdaa ciidamadu aan ciidamada ahayn kuwa maxaa la yiraahdaa raba inay magac ciidanka dilaan ah laakiin ciidanka guud ahaan nala jooga waxaan rabaa in halka ka daray inay ciidan